السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta maanta aad baan ugu faraxsanahay aan nigala soo qayb galo munaasabadan aad ku qabanqaabiseen magaalada Birmingham ee UK-ga. waan ka xumahay inaan nila joogi waayo hawlo badan baa iga soo dhaxgalay se waxaan jeclaa inaan caawa si gaar ah aan u hambaleeyo guddigii soo qabanqaabiyey munaasabadan si gaar ah aan ugu mahadnaqo raggii iyo cazumay inaan nigala soo qayb galo si video ah. waxaan salaamayaa martidan sharafta leh ee maanta caawa xaggan iskugu yimatay. waxaan waliba mahadnaq gaar ah aan u celinayaa dhalinyartii ku soo dadaashay ee isku soo dabaritay barnaamijkan caawa isku kaaga keenay. marka aqoonsiga xeerka ay UNESCO ga aqoonsatay horta waa guul mudan oo inaan la xusaa. waa guul muujinaysa sharfaysa qiimaha guud uu leeyahay uu xambaarsan yahay xeerkeenu. marka guddiga UNESCO ga ee diiwaan geliyay xeerka waxyaalaha uu joogsaday ayaan jeclaa bal inaan dhowr aniga taabsado. taa ugu horeysa waxay ula dhaceen qodobka rukunka midnimada ee xeerka asaaskiisa ah ee odhanaya sidaad u ogtihiinba ciise waa wada ciise nin caaramo dheera. rukunkan kale ama principalka kale ee muhiimka waa ka xeerka ka sarreysiinaya waxa kaloo ku dhan dhiigga ka sarreysiinaya run ahaan waa ka odhanaya ciise boqol ama buulo maahine biili ma laha. qodobka kale ee muhiimka ee caalamiga noqday ee nacamda dhaxal caalami noqon kare maxaan ku rahaa meel ka galaya xuquuqda aadamiga waxa weeyaan ka iskaashiga wala hadalka is-afgarashada wax wala wadaagga madax banaanida intaa ku dhan iyuu xeerku xambaarsan yahay. marka sidaad u ogtihiinba xeerku u ballaaran yahay intan badi dadku ay ka yaqaaniin maahe ah inta lagu kala socda. xeerku kol dastuur buu noqdaa dastuur siyaasadeed oo kala dhiga sida awoodda loo kala qaybsado sida awoodda loogu shaqeeyo iyo sida awoodda loo xakameeyo. marna wuxuu noqdaa code waxa la yidhaha oo nacam dadku ay ku kala socdaan dhaqan ya dhaqaale dadku ay ku kala socdaan. marka odayaasha xeerka asaasay run ahaan waa odayaal khibrad dheer u lahaa. waa odayaal darsay maamuladii ka jiray marka geeska afrika ee dowladihii muslimka waa qarnigii 16aad waxaan sheegayo. waa odayaal darsay shariicada inta maxaan ku rahaa nooca shariicada muslimka oo ka dhigtay oo ka reebtay wixii bulshadooda uga habbooneed ay ku shaqayn kari lahaayeen oo ka reebtay oo dhistay wixii ay bulshada badbaadin lahaa bulshada ciise. waqtigaas aad u ogtiinba waqti kala guuray ahayd waqti dhibaatooyin dhulka soo maray ahayd waqti la kala daatay bay ahayd waqti maxaan ku rahaa qoomiyado badana ay baaba'een kuwo kale oo cusubna ay soo baxeen bay ahayd. marka odayaasha xeerka dhigay waa odayaal isku yidhi war maxaan iskugu iman karnaa maxaan ku heshiin karnaa maxaan dhiganaa si aan uga badbaadno dhibaatadan ka socota waqtiga. waa sidaa waxaan aan u idhaa xeerku wuxuu asaas u yahay wax qaran ku dhow oo qaranka maxaa lagu gartaa waxa weeyaan marka dadku ay xeer iskugu yimaadiin. marka waa taa waxa keentay horta marka la diiwaan geliyey inay qomiyadda beesha ciise aad ugu wada farxaday kalsooni gaara ay uu siiyey aqoonsigaasi. ay weliba waxaad moodaa inay baraarugeen ay dareemeen waxaan ay leeyihiin inuu wax qiimo weyn sita uu yahay. ay dib maxaan ku rahaa wixii ay ka faani jireen ay maanta ay ku faanaan. marka
xeerka iyo odayaashii dhisay waxay ka mid yihiin anu waxaan yidhaa dadka filosofiyada falsafada siyaasadeed kaalin weyn ka ciyaaray laakiin waxaan xaggan dardaaran baan doonaya inaan iga soo jeediyo inkoo xaggan maanta fadhiya caawa waxa weeyaan marka xeerka aan ku faano laakiin in qowmiyadaha kale faankaasi uu xumeeyo maaha waa ina maaragtay xaqiraad iyo hoos u dhig iyo maxaan ku dad kale ay ka dareemaan maaha faankeena maxaan ku dabaaldega xeerkeena waa inaan maaragtay xooga dul dhigno waxa la wixii dadka isku keeni lahaa waayo xeerka ciisu waxyaalo badan buu maaragtay uu la wadaagaa qowmiyadaha kale Soomaali noqotaya iyo Oromada iyo Cafartaba marka waa ina run ahaan aan taa xooga dul dhignaa si qofna uu iskaga arag in la iska riixayo ama la yareysanayo hawsha kale na sugaysa ee muhiimka waa dhisidii taaladii xeerka ku saabsaneyd ee magaalada Tirdhabe bulshadu jecleed in laga taago saad u ogtiinba meel qurux badan oo saddex dikadood ay ku kulmaan iyana laga siiyay meel fiican weeyaan dagaal yaa loo soo galay si meesha loo helo waa meel qurux badan oo soo eegay marka waa ina taaladii la bilaabaa shaqadeedii iyo hawsheedii waa taalo aan ku sharfi doono oo magaalada Tirdhabana qiimo gaar ah siin doonta oo xeerku wuxuu yahay iyo astaanihii iyo sumadihii xeerka iyo maxaan ku raaa falsafadii ku jirtay taaladaasi ay muujin doonto taasna waa ina dadaalkeygii loo galaa kharashkii ku bixi lahaa la soo ururiyaa taasna waa hawl qurbaheen intiina qurbaha joogta ay kaalin ka ciyaari karaan gudahana de wixii maxaan ku raaa kharash la heli lahaa loo